xafladda 18 May ee 3 guurada ka soo wareegtay markii dalka Soomaaliland ka soo go'ay wixii la isku oran jiray Soomaaliya ayaa laga xusay dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo sanadkan 2024 si ballaaran looga xusay waddanka Djibouti waxaana xafladda 18 May ee lagu qabtay waddanka Djibouti soo qaban qaabiyay dadka reer Djibouti ee daneeya arrimaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaflad ballaaran oo la isku arkay aadna uga sii ballaarnayd xafladihii lagu qaban jiray dalka Jamhuuriyadda Djibouti xuska 18 May ayaa xalayto ayaa lagu qabtay bartamaha caasimadda Djibouti markii xafladdu bilaaban xafladda 18 May ayaa iyadu dhalinyaradii ka soo qayb gashay xafladda xuska 18 May iyo dadkii kala duwanaa ee mas'uuliyiinta iyo dadkii kala duwanaa ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii soo qaban qaabiyay xafladda 18 May ee lagu qabtay waddanka Djibouti sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay heesaha xuska maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May oo haatan ay ka soo wareegtay 3 sanadood. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin waqti sharafta leh halkan isugu timi goobta barakaysan ee Jamhuuriyadda barakaysan lagu dabaaldegay waan salaamayaa marka labaad waxaan idinku daryeeltay nabiga ku salliya sallallahu alayhi wa sallam hadayna nabigeena ku salliyin armuunka inaga baxa waa quraanku siduu sheegay waa karah weyn ayaa meesha ka dhacaysa marka labaad waxa weeyaan horta caawa waa habeen weyn ilaahay baa weyne waxa weeyaan habeen loo dabaaldegayo habeen qaali ah oo naf iyo maalba loo huray oo boqolaal geesi ku shahiideen oo hooyo ku goblantay oo gabadh ku qaaday oo u badloolaayay oo waxaan ku dhaaway waxba la isu dhaafin maalin xun oo taariikh xun aynu ka soo kabanay oo maantana aynu barwaaqadeedii aynu ku ciidayna markii aynu aargudanay ee aynu iska ridnay heeryadii waxweynay na saarnay waxa weeyaan maanta maalin aad u qaali ah runtii markaad eegto marka dhammaan horta waxaan aad baan idin salaamayaa mar labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Xafran Maxamuud Xayd dadka reer Djibouti oo dhan baan salaamayaa marka labaad waxaan salaamayaa geesiga Afrika mudane Muuse Biixi Cabdi xidid roole madaxweynaha salaamaya waxaan leeyahay madaxweyne ninkii ku doontaa wuxuu ka qaadi maayo oo ugu daaraya turtura mooyaane wax kale laga qaadayaa ma jiro hiiliye jabiye cadaw jabiye madaxweynaha yaga Muuse Biixi Cabdi hajawo waxaan leeyahay Soomaalidu way istaqaanaa in badan Soomaalidu dad wanaagsan badan oo istaqaanaa inkastoo duulkeena iyo gargaradeena badan tahay haddana bala wariba gaar bay isu taqaanaa saddenaad 18 May halkan looga dabaaldegayo annaguna aanu dabaaldegayno caawa dhammaantood salaam iyo hambalyo ayaan u gudbinayaa gaar ahaan waxaan sii salaamayaa silba hambalyo iyo salaam madaxweynaha dhaqanka madaxweyne ku-xigeenka ciidamada qalabka sida dhammaan golayaasha qaranka iyo shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan iyagana salaam iyo hambalyo halkan uga diraya alxamdulillah ma sha Allah tabaaraka Allah محمد جامع عوالي warbaahinta qaranka Soomaaliland Djibouti